sagaal kulan oo Champions League ayaa dhacay. waxaa ka dhalatay 39 gool ayaa ka dhalatay, tiro aad iyo aad u weyn ayaana ka dhalatay. cayaarihii dhacana waxay ahaayeen cayaaro aad iyo aad u xiiso badan, oo waxaan la soconaa Barcelona inay 6-1 uga adkaatay kooxdii Olympiacos, kaasoo cayaaryahankii Manchester United uu cayaari jiray Rashford oo wacdaro weyn u dhigay oo 2 gool uu dhaliyay, gool kulaadna qalad lagu galay, kaas oo Yamil Yamal uu dhaliyay 3 ka midana Lopez ayaa u dhaliyay kooxda Barcelona, taasoo si fudud u kala daadisay kooxdii Olympiacos ee Greega. waxaan la soconaa kooxdan inay hore uga adkaatay Arsenal gurigooda ay ku garaacday. milkiilaha iskalena Marinakis wuxuu kaloo leeyahay kooxda Nottingham Forest ayuu leeyahay. waxaan la soconaa usbuucii dhawaay waatuu raacdiyey tababarihii Postecoglou oo hadda uu magacaabo kooxdii Nottingham Forest Sean Dyche. si kastaba hatee kooxda Olympiacos ma u malay doono inay wareegan ay kasoo gudbi doonto, inkastee 2 koox oo xoogan ay ku soo aaday. Arsenal iyo waxaa kaloo ishelay kooxdii Atletico Madrid, oo aan la soconno Atletico Madrid in lagu tirinayay in xagga difaaca ay tahay kooxaha ugu fiican ee Yurub, taasoo Simone uu yahay tababaraha ugu dheer ee koox hayo. waana tababare runtii inkastoo labadan kooxba aysan weligood ku guuleysan Champions League, haddana labadan koox waxaa aad iyo aad loogu tirinaya xagga difaaca inay aad iyo aad ugu adag yihiin, oo Arsenal 3 gool keliya ayaa Premier League laga dhaliyay. kooxdanna waa la socnaa Atletico Madrid in Simone shaxda weyn oo ku shaqaysta inay tahay difaac, taasoo aan la filayn in Arsenal ay tiri 4 gool ay ka dhaliso markii la fiiriyo Atletico Madrid qaabka ay ku soo gasho. inkastoo qaabkii hore ciyaarta markii la bilaabay Atletico ay ficneed oo Julian Alvarez oo kubad oo birta ku dhiftay, laakiin wax walba waxay isbedeleen markii cayaaryahankii Gabriel oo difaac ahay oo gool madaxa uu ku dhaliyay waxa loo yaqaano sad biisiska. kadibna meeshaas Martinelli kubad aad u fiican oo Luis Skelly uu kasoo shaqeeyay xarqan zeytun geeskeeda loo dhigay, geeska kalena oo kubad ka dhigay oo kubad aad u fiican oo ka dhaliyay. Yogores oo lafsaantiisa in muddo ah lagu eedeynayay 9 cayaar inuusan wax dhalin, 2 gool ayuu dhaliyay, kaasoo uu ka dhaliyay xariqinta 18 ayuu ka dhaliyay. hase yeeshee labadaas gool waxaan qabaa inay ka tirtirayso macnaha doodii badneed oo Yogores la haysatay oo la dhahay wax muusan dhalin. taasna Arsenal 4 gool ayay ka dhalisay kooxdii Atletico Madrid, oo meeshaas Simone guuldaro weyn oo kala tegay uusan filaynin. Arsenal waxaa u malaysaa cayaaraha Champions League iyo Premier League labadaba inay aad iyo aad ay u xoogan yihiin, oo isbedel weyn Arsenal uu ku socdo, khaasatan difaacooda oo xoogan ay sababto weyn u tahay. cayaarta Premier League-na waxay la cayaari doonaan Crystal Palace ayay la dheeli doonaan, gurigooda ugu imaan doonto. waana 2 koox oo magaalada London isla degan. Arsenalna xaaladeeda aad u fiican tahay. Premier League-na hoggaanka 19 dhibic ayay ku hayaan. dhankan Champions League-na aad iyo aad ayay xaaladooda ay u fiican tahay. dhanka kale cayaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa waxay dhex martay PSG iyo Leverkusen, oo waxaan la soconnaa in Bayer Leverkusen laga saaray cayaartooy, taasoo 1-0 ay ahayd. kadibna PSG-na cayaartooy laga saaray ay 1-1 noqotay. cayaartan xiise ay yeelatay ay meeshaas in 10 cayaartooy ay noqdaan labada kooxba. si kastaba hatee garoonkii oo cayaartooyda joogta aad u weeraa, taasoo weerari weer cilin ku socotay. taasna waxaan ognahay in Bayer Leverkusen laga awood badnaay lagana tayo ficnaa xagga cayaartooyda, taasna ay sababtay in 7 gool laga dhaliyo. 7daas goolna 6 cayaartooy oo kala duwan oo PSG ayaa goolashu dhaliyaan. 2 ka mida waxaa dhaliyay Due, inta kalena waxaa dhaliyaan cayaartooy kala duwan ayaa dhaleen. taasna waxay ku tusaysaa kooxda markay ugu yaraan 6 cayaartooy ay wax dhaliso inay kooxaha kale ay ka tayo fiican yihiin, ay haystaan cayaartooy tiro badan oo goolal kala googooniyay oo dhaliyay. PSG-na runtii sanadka hore lama filayn inay noqoto kooxda ku guuleysanaysa Champions League, laakiin markii knock out-ka loo soo baxay ayay PSG marka dambeysa ay soo xoogeysatay. haddana waxay u muuqataa kooxaha ku tartami doona Champions League oo qaadi doona ayay weli u badan tahay, sababtoo wali xoogoodii uu jira oo hoos uma dhicin PSG. waxaana fili doonaana inay noqon doonto kooxaha ku guuleysan doona markii la fiiriyo weli qaabka ay ku socdaan, taasoo
ka dhalisay 7 gool Bayer Leverkusen oo gurigooda looga dhaliyay ay banaanka ay ku cayaareen. taas maxay ku tusaysaa awoodda ay leeyihiin. Copenhagen iyo Dortmundna 2-4 ayay ku dhamaato. Dortmund ayaa 4 ku adkaato, gurigooda ayaa Copenhagen looga soo adkaaday. Newcastle iyo Benficana 3-0 waxaa ku adkaatay kooxda Newcastle, taasoo Gordon iyo Harvey Barnes ay goolasha u kala dhaliyeen oo Newcastle gurigooda guul weyn ayay ku gaartay. laakiin waxaa kaloo yaab kalahay laftigooda waxay ahayd PSV Eindhoven oo 6-2 uga adkaatay kooxda Talyaaniga Napoli, taasoo wax la yaab leh ahayd. runtiina Napoli waxaa la filayay kooxaha Yurub ugu fiican inay taasi yeeshee guuldarro weyn ayaa ku dhacday. dhanka kale Inter Milan laftigeeda oo sanadka hore finalka soo gaartay 4-0 ayay Union SG uga adkaatay, oo Inter laftigeeda waxaa u malaysaa inay guul banaanka ay ku soo gaartay. dhanka kalena Manchester City oo Spain aaday laftigeeda oo Ferrell la ciyaaraysa oo aan la soconna ciyaartii dhaweyd oo Everton ka adkaaday inuu 4 ciyaartoy oo fadhiisiyey. hase yeeshee Haaland weli gool dhalintii ayuu wadaa, kaasoo 12 ciyaar oo isku xigto goolal Haaland dhalinaya, oo goolkii koowaad ayuu ka dhaliyey, taasoo si fudud oo u dhaliyey. goolkii labaadna Savinho ayaa wuxuu u dhigay Bernardo Silva oo kubad madaxa loo saaray ayuu ku dhaliyey. Cityna waxaa u malaysaa marka dambeysa in ay soo xoogeysanayso, ciyaartoydoodana ay soo qabsanayaan, oo u malaysaa in Pep Guardiola kooxdiisa ay soo dhismayso. oo waxaan la soconnaa kooxdan ciyaartoydii hore oo talantiga ah inay ka tageen, oo hadda dhalinyaro fiican oo soo dhisay. khaasatan waxaan qabaa ciyaaryahanka Brazilianka ee ka dheelo dhinaca midigta ahaan ayuu u dheelaa, marmarna bidixda ayaa la geeyaa Savinho, inuu marmarka dambeyso uu soo fiicnaanayo, khaasatan inuu bilaabayo xarqin 18 inuu isku dayo inuu galo. haddii uu geli waayana kubada fiican inuu xarqin 18 uu dhigo, ama madax uu ku dhigo, ama luqt uu soo saaro, taasoo isbedel weyn uu ku yimid ciyaaryahankaas. aan u malayso inuu tababarkiisii ama tayadiisii oo Pep Guardiola uu soo kordhinayo. marmarka dambeysana waxaan qabaa sida uu kusii socdo in dhankaas oo aad iyo aad uga soo fiicnaa doono. laakiin su-aalaha la isweydiinayo waxay tahay 3 koox ee Ingiriiska ah ee Champions League uga qaybgalaysa, Arsenal, City iyo Newcastle, 3 way soo guuleysteen. 3 kale ayaa cayaari doonto, oo waxaan la soconnaa in Tottenham iyo Chelsea iyo Liverpool ay cayaari doonaan caawa. 3daas koox ayagana ma badi doonaan. hadday soo badiyaan waxay noqon doontaa inay meeshaas ayaga ay awood weyn ay ku yeeshaan Champions League kooxaha Ingiriiska. waxaan isleeyahay 3dan koox Tottenham Monaco ayay la cayaari doontaa, Chelsea Ajax ayay la cayaari doontaa, Liverpoolna Frankfurt ayay la cayaari doontaa. 3dan kooxna hadday soo guuleystaan oo 3 kalena ay guuleysatay, waxaan qabaa inay taariikh weyn ay tahay, oo 6 koox oo Ingiriiska oo Champions League ugu jirtay 6daba inay guulal ay soo gaari doonaan. marka waxaan ka warsugi doonaa caawa 3dan koox Chelsea, Liverpool iyo Tottenham, oo Liverpool xaaladeeda waa la soconnaa oo 4 ciyaar isku xigta inay guuldarooyin ay ku dhacday. 3 ka mid ah Premier League inay tahay, iyo mid oo Galatasaray ay ka adkaato Champions League, oo Liverpool xaaladeeda ma fiicno. laakiin waxaan u malay doonaa caawa inay ka jawaabi doonto ee kooxda Frankfurt ee cayaar tusi doonaan. Liverpoolna waxaan isdhihi doonaa inay soo kabsato ayay u badnaa doontaa.